هذا كدب ملوحدة سان وقصة ملوح اسكو ديلي ترى نفقيسا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواء channel كنا فرحي وكشين أصحاب تقاليقة مركل إيمو قال أسف ساكو حنينو ودا قراع أن إنا بعاديهين ملوح دقير تشنبر قابك أغو معانا أسميسان كرتيد سوري دبادة داوشة وناكسن مركو رح سوقع تباقولي وحنكو شبايا caanaha markaan ku shubo 2 koob oo caana waxaan ku darayaa ilaa 2 koob oo biyo ah kadib waxaan ku soo darayaa burkii qiyaasta marka adiga aqsanaysid ay ku xiran tahay nus kiilo bur ayaan ku soo shubay intaas kadib waxaan ku darayaa wax yar oo cusbo ah wax yar oo sokor ah kadibna si fiican ayaan u qasayaa hadii muuqaalku ku cajab geliyo like noo saar insha Allah waa ku mahadsantiin daawashadiina kommentiyadiina iyo waliba dhiirigelintiina intaas kadib سأوجدان بوحي روسكوران كدرة سكرت مال واحدة أذا كوبادين كرو هذا كويرين كرو عصبدنا سيدو خليته كدب نسف يعني أصو قراع عيا وحكوس كوسميني كايرة لمرة وسف يعني أصو قراع أما ماكينة دا كسوشي كرتا أنت أسكدب بركي مركان سف يعني أصو قصي وحن كدر عيا لبا حبا أكونا لبا حبا أكونا مركان كدر كدب نوا أصو قصي سف يعني bursidiisa waxaba qasitaan leh waay si fiican la isaga qas intaas kadib dhinaca kaleeto birtaawada dabka noo saaran birtu waa ay kululaatay xabadii koowaad ayaan ku shubayaa bismillaahir rahmaanir rahiim birtaawooyinka aan gada ay kamid tahay canjeelada sawaayada malawaxda afaarahaas oo dhammeeyay ka saaraysa midaada kale birta markay cusub tahay canjeelada sidee tahay inaysan kugu sameeyna laga yaabo faantay laakiin waxay u baahan tahay inaad waqti siisid laakiin malawaxda maalinta u hore waa kaasaad birtan way cusub tahay maalinka u hore malawaxda ku sameeysid waqtar kugu sameynaysaa laakiin canjeelada kisto sidii la rabo ma noqonayso waa inaad maalin 2 maalin 3 maalin marka ku karisid maalin kasi dambe ismicnaa quruxay kasi dhigaysaa canjeelada malawaxdan waa kaasaa ma sha Allah tabaarakallah saas ay ku soo baxday ugu dambeyntii birtan waxa originalka waa ma xoqmayso waxna ma ku dhagaan faanteen waa ujeedaan ma sha Allah malawax aan inna bacaadiheen qurux badan laga sheekeyni karin malawaxday oo dhan saan ayaan ku soo dhameynaya ugu horeen hadii aad ku cusubtahay channelka waxaan ka codsanayaa subscribe inaad taawatid calaamada guduudan kadibna gambaleelka furo si muuqaal walba aan soo dhigo uu kugu soo dhaco insha Allah hadii gambaleelka aad taawatid muuqaal walba aan soo dhigo kuma dhaafi doono oo waad la socon doontaa xabadii labaadna sidoo kaleeto malawaxday oo dhan saan ayaan ku soo dhameynaya saasi oo qurux badan tahay oo ujeedaan ma sha Allah saliid ama subag wixii aad jeceshahay ku duwan kartaa hada diyaar waay ugu dambeyntii burkii oo malawaxda waa soo dhameynay canjeelo qurux badan laga sheekeyni karin dhinaca kaleeto digirta mar badan ay soo weydiisaan digirtan horta Soomaali waxa la dhahaa shumburaal ama faanteen shumburaal dhahaa digirtan waa high protein waay waxay qabtaa macnaha waxay leedahay protein ay leedahay badan ma sha Allah caafimaadkaada u fiican tahay hadii diet ku jirtid hadii familka u sameynaysid maraqa ku darsan kartaa intaad si gooni u karisid bariiska lagu cuni karaa bariiska ku dhex karan kartaa meel ay diidaysa malaha ma fahanteen pressure cooker kan soo qaatay asaga waxa uu xiisdan waa iska 5 daqiiqo digirtu waa soo dhaqay ilaa 1 litir oo biyo ku shubay digirtaan ku daray cusbaan ku daray daboolkan dhab ku siinaya pressure cooker-adan waa kuwa aan gado korontada ku shaqeeyaan ma fahanteen bariiska maxaan ku raadaaye hilibka boobsiis horta hilib looma gaaro ma fahanteen hilibka iyo digirtan afaaraas oo isticmaala ma sha Allah waxa dhanba kala arag digirta meesha ku qoran taabanaysa kadib halkaas ayaa taabanaysa saacada ku dareysa 40 daqiiqo ayaa u geynaysa 40 daqiiqo marka u geysid hadaysan si fiican u bislaanin 40 kala ugu dareysa hadii ay bislaato 40 kaasna ku filan 40 marka u dhamaato asaas daminaa ma fahanteen dabaysha baa ka saaraysa kadibna tartiib waa furaysa waa kaas marka dabaysha ka saaraysid waxa la rabaa afkan yaro inta soo jeed ina xaq u jeedisid saas u jeedinaysa isticmaalkiisa aad u fududahay ma sha Allah tabarakallah intaas kadib
digirtu ay noo bislaatay. digirta hadda ujeedaan waa kiilo digir ah. kiilaha dhanba hal mar lama wada isticmaal rabo. digirta hal mar karinaysaa, markaad karisida ujeedaan saasay u bislaatay. weela ku gadinaya baastamirkaasi biyaha qoyaan inay u yeelato maro sababtoo ah qabow markay noqoto waxaa rabaa firinjeerka inaan geliyo. waan soo miirayaa baastamirkaas aan kusoo ridayaa, kadib markay qabow noqoto waan soo xirxirayaa. macnaha waxaan ka wadaa ruwac ama tuman u xirxiraysaa, firinjeerka qaybta barafka gelinaysaa. mar walba u baahan tahay inaad digir karisid ama digirta aad inaad isticmaashid kistaadoo ku xiran la soo qaadanaysaa, isma bedelayso kaama halaabayso. inta yaroo baaqulga aan ku shubo haddaan rabaa inaan kariyo oo malo waxdo lagu cuno. inta kale aan xirxirno ujeedaan ayadoo saasan qaybta barafka gelinaya firinjeerka. marka u baahan tahay bacda la ka jaraysaa, suugadaada ku dhex darsanaysaa, maraqa wixii marka u baahan tahay. ma sha Allah digirtii waxaan filayaa inaad ka faa'iideen. sheekadaas ay ku soo dhamaatay. digsiyan dabka saaray, waxaan ku shubay macsaro. saliida isticmaalaya macsaro waay, ayu saliid aad jeceshahay isticmaali kartaa. kadibna waxaan ku daray basal oo aan si yar usoo jarjaray, 2 xabo karoota ayaan ku daray. intaas kadib waxaan ku darayaa xawaajiyo isku dardar ah, qaadada haafkeeda oo huruud ah, wax yar oo cusbo ah. kadibna waxaan kusoo gadinayaa digirtii oo bisil oo diyaarsan. karootada ma bislo, karootada waxaan rabaa inay bislaato. marka waxaan sameynayaa digirtii aan kusoo gadinayaa. intaas kadib 3 qaado caano garoor aan ku darayaa ama caanaha fadhiyo. kadib qaadada dhaxmarinayaa. markaan qaadada dhaxmariyo wax yar oo biyo ku daraa, daboolkan dhab ku siinayaa. digirta hadii saana u sameystaan ku dheef faraha la dhuqdhuqaa ma fahanteen. dhadhankeeda lagama sheekeyn karo ma sha Allah tabarakallah. daboolkan dhab ku siinaa 10 daqiiqo kadib waa ku soo laaban doonaa. dabkana dab caadi uga dhigaysaa. digirtu way bisishahay, karootada iyo afaaraha kale la rabo inay isku bislaadaan. ugu dambeyntii waxaan ku soo daray barbarooni soo jarjaray iyo basbaas. waa kaasa kaaliska argay lagama sheekeyn karo. hadda diyaar waay, waa ka daminayaa. hilibka subaxda lagu quraacanayo afaarahana kaaga fiican fahanteen. ma sha Allah soo tijaabi hadaadan wali maxaan ku raada aadan saan u samaysanin. digirtana ayuu nooc ay tahay markaad karisid firinjeerka qaybta baraf iska gasho ayadoo saas ugu diyaarsan. dhinaca kale 2 saxan soo qaatay, mid digirta ku soo riday, midna malo waxda ku soo riday. ma sha Allah tabarakallah quraac isku dheelitiran aan inaba caadi ahayn. malo waxdina ujeedaan waa kaasa malo wax qafiif ah. haydigan ma fahanteen. muuqaalka like saara, asxaabtiina u sii share gareeya. jazaakallahu khayran. waad ku mahadsantiin daawashadiina, koomentiyadiina iyo waliba dhiirigelintiina waa idinkaga mahadcelinayaa. waxaan idinkaga tagayaa khayr iyo caafimaad. mac salaam.